السلام عليكم kusoo dhawaada hal daqo maanta waxaynu barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa Benin jamhuuriyadda Benin waa dal galbeedka Afrika dalkan hore waxaa loo magacaabi jiray boqortooyadii Dahomey wuxuuna xuduud leeyahay Togo Nigeria Burkina Faso iyo Niger waxaana caasimad u ah magaalada Porto Novo magaaladan xilliga gumeysiga waxaa loo dhisay in laga dhoofiyo adoomada lana geeyo qaaradda Amerika magaalada ugu weyn dalkan waxaa loo magacaabaa Cotonou tirada dadku waxaa lagu qaasaa 11 milyan oo qof luqadda rasmiga ee dalkan lagu hadlo waa Faransiiska diinta ugu badan ee dadku haystaan waa diinta Kiristaanka waxaana ku xiga diinta Islaamka dalkan waxa ku yaala kaliya laba dekedood waxayna ku kala yaalaan magaalooyinka Cotonou iyo Porto Novo suufka ayaa ah waxyaalaha ugu badan ee dalkan laga dhoofiyo dhaqaalaha dalkan wuxuu ku tiirsan yahay beeraha iyo ganacsiga ma ogtahay dalkan inuu ahaa dalkii ugu horeeyay 1990kii ka gudba xukunka keligii tirasnimada una gudba dimuqraadiyadda dalkan waxaa gumaysan jiray Faransiiska laga soo bilaabo 1900kii miilaadiga ilaa ay xornimada ka qaateen 1 August 1960kii lacag dalkan waxa loo magacaabaa West African CFA franc